ku xidhnow LVD waa codkaagii waa codkaygii waa codkeennii aan isku darno codkeenna handheerayno codkeenna halkani waa Laafawaadi Jabuuti ka dhigo wehelkaaga LVD. السلام عليكم رمضان مبارك نبض وضيال دلهانتينبا كسو دوادا وركا LVD وركنا waxaa diyaarinay idila socodsiiso aniga Amal Khayr Maxamed Xasan Garaad Kaaba qodobada aad warka ku maqli doontaan waxaa kamida Djibouti ayaa ku guuleysatay tartanka 20 juz ee xifdiga Quraanka Kariimka qaramada midoobay oo sheegtay in 6 milyan oo Soomaali ay saameeyeen abaaraha ka jira dalka Soomaaliya iyo Faransiiska oo maalinta bari ah looga dareerayo doorashada madaxtinimo ee dalkaasi qodobadan iyo warar kale oo geeska Afrika ayaad ku maqli doontaan marka hore si Djibouti dalka Djibouti ayaa lagu soo gabagabeeyay tartanka xifdiga Quraanka oo ay ka soo qayb galeen 9 dal oo ka kala socda wadamada qaaradda Afrika tartankan oo ahaa sanadkii 2022 ee ay martigeliso Jamhuuriyadda Djibouti ayaa lagu tartamayay 30 juz iyo 20 juz iyo 10 juz ee Quraanka tartankan ayaa kaalinta koobaad ee 30 juz uu ku guuleystay xaafid ka socday dalka Kenya halka 20 juz uu ku guuleystay xaafid u dhashay dalka Djibouti iyo sidoo kale halka uu 10 juz kaga guuleystay xaafid u dhashay dalka Yemen madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle ayaa gudoonsiiyay abaalmarino kala duwan guuleystayaasha tartanka xifdiga Quraanka Kariimka ah waxaan isugu imanay halkan caawa musaabaqada weyn loo yaqaano musaabaqada gobolka ama tartanka gobolka Quraanka Kariimka taasoo ku baxda على نفقة رئيس الجمهورية الحاج إسماعيل عمر جيلي أو مالك اليو مدحوينها ذلك حاج إسماعيل عمر جيلي حفظه الله حفظه الله هنا إلى اليو واحد مددي لبئية لباتناد أنا وسنتكي لبئية لباتناد أنقب قابلنا ترتن كان waxaan u yeernaa oo ka soo qayb gala sanad kaste 10 wadan ayaa ka soo qayb gala sanadkan waxa ka soo qayb gashay 8 wadan iyo wadanka aan joognay ee Jamhuuriyadda Djibouti oo 9 wadan ayaa ka soo qayb gashay waxaana la maraa Quraanku 3 qaybood buu leeyahay 30 juz iyo 20 juz iyo 10 juz sanadkan waxa ku guuleystay 30 juz nin xaafido oo ka yimid dalka Kenya u dhashay 20 juz waxa ku guuleystay reer Djibouti waxa ku guuleystay 10 juzna waxa ku guuleystay ninka socda ama xaafid ka socda wadanka Yemen ashaqiiq Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynaynaa inuu ay nagu anfaco Quraanka oo nagu anfaco inta nafaqaynaysa had iyo jeer la dul joogta deeqda la dul joogta ugu horeeyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelana Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ka aqbalo waxay noo soo socda wararka inaga soo gaadhay dalka Itoobiya hay'adda sirdoonka dalka Itoobiya ayaa gacanta ku dhigtay 34 qof oo kamid ah kooxda argagixisada ee Al-Shabaab balse aan ku horeyno Soomaaliya ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhimatay halka 7 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay xeebta Lido ee magaalada Muqdisho qaraxan ayaa la beegsaday goob ay ku sugan yihiin saraakiil iyo madaxda ka tirsan dawladda Soomaaliya qaraxan ayaa waxa sheegtay kooxda argagixisada ee Al-Shabaab afayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Cabdifataax Aadan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inuu qof isku soo xidhxidhay walxaha qarxa oo isku qarxiyay wadada dheer ee tagta xeebta Lido qaraxa weerarka ayaa ku soo beegmay xilli ay Soomaaliya ka socoto doorasho aan ku sii soconay isla wararka Soomaaliya inaga soo gaadhaya qaramada midoobay ayaa sheegtay in ay ugu yaraan 6 milyan oo Soomaali ay saameeyeen abaarahan isla markaana ay sii kordhayso tirada dadka ay saameysay abaartu dhibaatooyinka abaarta ayaa loo sababeynayaa in ay aad u yar yihiin roobabkii la filayay inay ka da'aan xilliga guga taasina ay keentay in ilaa iyo 6 milyan oo Soomaali ah in ay haatan ku sugan yihiin xaalad cunto yari ah oo baahsan
qaramada midoobay ayaa sheegaysa in hay'adda gargaar ilaa 2.6 milyan oo qof ay gaarsiiyeen kaalmooyin lagu badbaadinayo nolosha dadka tabaalaysan. qaramada midoobay ayaa codsanaya in ay u baahan yihiin 1.6 bilyan oo dollar si wax looga qabto xaaladda abaareed ee ka jirta. abaarahan xooggan ee ka jira wadamada Geeska Afrika ayaa ah kuwii ugu xumaa ee soo mara muddo 40 sano ah. markana Itoobiya hay'adda sirdoonka Itoobiya ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigeen 34 qof oo ka tirsan kooxda argagixisada ee Al-Shabaab kuwaas oo rabay inay fuliyaan qaraxyo iyo weeraro caasimadda dalka Itoobiya Addis Ababa iyo gobolada dalkaasi. bayaan ay soo saartay hay'adda sirdoonka Itoobiya ayaa lagu sheegay in kooxdan isku diyaarinayeen weeraro arxan darro ah oo ay ku beegsanayeen xarumaha diimaha. wararku waxa ay sheegayaan in kooxdani ay doonayeen in ay qaraxyo ka fuliyaan deegaanka Soomaalida Axmaarada iyo caasimadda dalka Itoobiya ee Addis Ababa. qabashada kooxaha argagixisada ah ayaa imanaya xilli ay dadka muslimiinta ah gudanayaan waajibaadkooda bisha Ramadaan iyo xilli ay dadka aaminsan diinta Kiristaanku ay u dabaaldegayaan ciidooda. wararka ka imaanaya dalka Faransiiska ayaa lagu soo waramayaa in maalinta berri ah dadweynaha Faransiisku u dareeri doonaan codbixinta doorashada madaxtinimo ee dalkaasi. musharaxiinta Lebanon iyo Macron ayaa ah kuwa ku loolamaya guusha doorashada. dalka Faransiiska ayaa saameyn weyn ku leh wadamada qaaradda Afrika gaar ahaan wadamada uu guumeysto waxaana la filayaa in ay natiijada doorashadu wax badan ka bedeli doonto dhaqaalaha Afrika. doorashadan ayaa la filayaa in ay bari ka dhacdo dalka Faransiiska. wixii warar ee ka soo kordhana waxaad ku daawan doontaa wararkeega dambe. warkii alfeede oo naga intaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo. ku xidhnow LVD waa codkaagii waa codkaygii waa codkeennii aan isku darno codkeenna handheerayno codkeenna halkani waa Laafawaadi Jabuuti ka dhigo wehelkaaga LV